Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigu hoggaaminayay waxay soo gaareen magaalada Nayroobi halkaas oo berri uu ka qayb gali doono shir caalami ah oo ku saabsan arrimaha dadweynaha iyo horumarintooda. Shirkaasna wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah waxaana lagu lafaguri doonaa mawaadiic muhiim ah dalkeena iyo waxbarashada iyo caafimaadka ugu muhiimsan yihiin oo runtii aan baahi badan u qabno. waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo shir miro dhal ah Soomaaliyana ajandaheeda ay ku soo bandhigto. subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambalelka digniinta si markaan muuqaal soo gelin aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share garaysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+ iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.